deeqdani maanta loo qaybinayay dadii dhowaan ay waxyeelada weyn u geysteen duufaantii daadkii iyo roobabkii dhowaan ka da'ay geyiga Somaliland gaar ahaan deegaanka Elfweyne galbeed gobolka Sanaag ee tuulooyinka Bixin iyo Garuble oo ahaa deegaano si weyn ugu xidhan wax soo saarka dalagga beeraha kuwaas oo ay maxsuulka dalagyada kala duwan ee ka soo go'ayba si weyn ugu xidhnaayeen dalalka Somaliland iyo Djibouti marwadalay shira farax oo deeqdani wakiil ka ahayd ayaa faahfaahin ka bixisay cidda looga dan lahaa siinta qaybinta iyo guddoonsiinteed waxaana ay xustay in deeqdan ay u soo dhiibtay mareeyaha xafiiska samafalka Somaliland Amina Maxamuud Diiriye taasi oo ay ugu tala gashay dadkii saamaynta khasaare ay u geysteen roobabkii mahigaanada ahaa ee dhawaan ka da'ay wadanka oo dhan sanad taaganahay waa Garuble waxay ka tirsan tahay degmada Elfweyne oo dadkii daadadku qaadeen waxaana sidnaa wax badan maaha laakiin waa wax taraya dadkii daadadku ka qaadeen beeraha yaan maantii dhawaad soo marnay ayaan ugu tala galnay in la siiyo inta ay waxooda yare wadwadanaya ma ugumana horeyso ugumana dambayso waanu keeni doonaa si fiican in kale loo qaybiyo baan doonaa waa konton kabtadood konton kishbaaydo waxaan qaybtii kala geynay bixin laba bundood oo dheera iyo konton ka kabtadood baalka yaala inshallah way ku filaan doontaa waxayna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Elfweyne Baasha Xamdulla Warsame xildhibaan Siciid Xirsi Cabbaase mayrada tuulooyinka Bixin iyo Garuble Rafaarax iyo Ibrahim Degadub ayaa dhamaantoodba tilmaamay kuna nuxnuxsaday sida ay muhiimada iyo waxtarka ballaaran ugu tahay isla markaasina ay wax weyn uga tari doonto raashinka iyo dharkani ba dadkii ay ku dhacday aafada iyo musiibada ballaaran kuwaas oo ay hal habeen oo kaliya seexdeen iyagoo qaniya aroornimadii hore ee subaxnimadiina ay ku soo tooseen waa bariisteen iyagoo foqor ah waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo si weyn uga mahad celiyay dadkii ka faa'iideysanayay deeqdani raashinka iyo dharka ahayd kuwaas waxaan yar balbalaarin lahaa in badan ayaamaha waxa la dhageysanayay maxaa la yiraahdaa ayl iyo daad ku kacay iyo xeebaha Puntland waxaan u sheegaynaa xukuumadayada inay ku kacday Garuble aafo khatari oo boqolka reer iyo Bixin oo boqolka reer ay maanta dusha tuban yihiin annagoo ah xildhibaanada ay doorteen waxaanu cadaynaynaa in ay arrin khatari ka taagan yahay Garuble oo ay biyihii toga marayaan ciidina agtaalo laakiin maxaa geynaya annagu tamar uma hayno haddaan nahay xildhibaanada ama degmada wax naga tan weyn weey madaxweynaha waxaanu leenahay Axmed Maxamed Silaanyo arrinka inuu ciid u idmo Garuble cid loo soo diro iyo Bixin xaaladoodu waa adagtay boqolka reer waxay sugayaan madaxweynaha yaalihii intii aan cidina sheegin bay ahayd intii aanu joognayna aan soo marin iminka beeri way ma yihiin qaar badhu la tagay farsaaqeedii uu ka gooyay dadkeena iminka way iska hoganayaan marka aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa dawladda annagoo aad iyo aad ugu mahad celinayna dawladda iyada waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha madaxtooyada wasiirada maamulka dawladda talisiro hadda nagu soo gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan ka codsanaynaa inay sida tan gurmadkan ay hadda maanta noo fidiyeen aad iyo aad mid kale naga daba keenaan si ay uga tarto baahida beeraleyda saaraha uu roobabkaas geysteen kuma koobna beeraha oo qura iyo saaqeeda waxa jirta dad badan oo xoolo ka laayay jeexyo badan oo dhul deegaan ahaa oo kansal gareeyay oo ka dhigay boholo oo baabiyay waxyeelad fara badan baa jirta oo inta maalintii hore intii beeraaleyda iyo saaqeeda iyo intaasan ay qoladii horena soo martay aan kuwa keen laakiin baahidu intaa waa ka badantay waxyeeladu aad iyo aadna waxaan noo codsanaynaa baahida meeshan la yiraahdo tuuladan Bixin waxbay ka taraysaa oo raashin kuma yaara waxa weeye raashin doora weey waxaanu aad iyo aad isna aanu codsanaynaa wasiirka beeraha Faarax Cilmigeedoole inuu gacan weyn naga siiyo dhibaatada meeshan ka jirta tuuladaas oo tuulad baaxad weyna tuuladaas oo wax weyn ugu fadhida Somaliland oo dadka ku nool iyo waxyaalaha ka soo baxay iyo dhaqaalaheeda iyo wax walba ay degmada ka ah lafdhabarta ugu weyn waxaanu aad iyo aad codsanaynaa in dawladdu si weyn noo soo egto tan soo gaadhay caawimadana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid allaale iyo cidii ka gacan ka hawl gashay cidii soo dhiibtay cidii gacanta naga siisay wax kasta oo dhacay ilaahay baa keenay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka hore rasuulkuna wuxuu qofkii qof quudiya wax laga quudinayaa midhaha jannada
waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadiisa koobaad Aamina Waris aafadaas way neeshay anagoo habeen qaniya baanu seexanay subaxina anagoo fuqaraa baanu soo kacnay beero oo beeran waa nimco oo aanan deelhayn bay wixii noo hadhay hayntii noo hadhay ma laha waxaanu ku waraabino saaqiyad mishiino midna ma hayno kinaaladii waa baabeen dhulkii kalax aan la degi karin duufaantaas wax ka weyn baa ilaahay haya laakiin biyaha halkaas soo maray weligood may soo maray halka kalaxa Siyaad Maxamed Barre baa lagu soo dhaweeyay beero iyo barwaaqa maantana loo malayn maayo inay beer ahaan jirtay waa kala weyn kinaaladii way naga go'een marka waxaan codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa iyo xukuumaddiisa inay meeshan oo meel qaali ah oo wadna ku ah Soomaaliland inay soo eegto tacliinta caafimaadka beeraha dhamaan waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelay telefishinka qaranka Soomaaliland ee Ragabo